جدين إنه جركي ميلا بدن وحجر عن إذن لو ذاقي كريم أوكي سو مركا أنا waxa ay hela cadow ay ahaayeen Soomaali ma ahayn qof yani marka xasuusto ma jeclina xasuusto Soomaali ma ahayn aad dad u xun ay hela so ina idin si macnaa idin si faahfaahiyo wax macnaa ima keenayso so marka waxa idin sheegaya dhaawacan way gaaridaasru wax branki ma jiraan naftayda oo halis gasho halkaas midili gali lagu marnay yani wax oo noqon kara ma ahan prank okay so dadka beenta iga sheegay dhaaraya anaga la xiriirnay rayaan ana ka yeelnay please beena iga sheegin okay marka dadka dhaawac ay gaarsiiyay yani Soomaali ma aha marka ay dhahay basically ma ahan Soomaali ma wiilka igaraacayo midida igeli Soomaali u ahay gabadha shaqoolka igiisata Soomaaliya ahayd laakiin ani ahaan arxan daradooda Soomaali ma umaleey walahi so marka dadka iga walwala dhaarayaan isbitaal jiifta saan taasru isbitaal waa jiifay waxaan maalmo ka hor dhaceen video xiliga idin soo gaaray waa xilli ani yani oo aaba sii reysanayo okay yani videogaas waa la iga duubtay waa la dilay hadda ma ahayn waa la igu rakaateynay waxyaabaha ay leedahay waa lagu soo dhigay la igu cabsina so markii dambana banaanku imaada markaasna aniga waa xanuunsanaa dhaawacyadii yani way bislaayeen alxamdulillah inkastoo hadda reysanayo dad badan waxa dhaayayna arkay ma soo karto ma yeeli karto waa soo kara alxamdulillah dhaawacaygan inta hadartaan gaartay inuu Ilaahay ii booga dhayo ilmo yar iska haystaan nolosheeda ana maxaa la hal ku taagan ina cadow sameeysto ma jecli ma aqaan dadkan meel ay soo raaceen cadownimada intaan la eg Soomaaliya marka insha Allah ii soo duceeya yani intaas ka bacdi waxa idin dhaamaqaan waxaana waxay ahayn shirqool inaana hadda ka hadla maro waa arimaha inaan ka hadlan ii banaaneen soo marka arimaha waxay quseeyaan amniga soo dadkii shirqoolay qaar kamid waa la haya qaar kamid waa la yaqaana dad aqaana ku jiro soo marka insha Allah taala investigation socdo markuu dhamaado ana la soo wadaagi doono dadkeen meesha iga soo weerareen sida aniga la igu qabtay waxa soo dhan laakiin hadda kama hadli kari ina soo duceeya oo aragteen kulay soo dhaawacay ii gaaray adduunkan waxa waa cadow iska jira inkastoo aan ma aaminsanayna cadow leeyahay ma aaminsana qof inuu shirqoolayo ma fahanteen soo qof aan nolol soo wadaagnan ma shirqoolin waa kaasa ina ka sii hadla marabo laakiin dad aniga isku dhownahay Allah soo adeegsaday waa kaasa guys natus mar labaad idinku celceliya intaan ka bacdi inta u socotiin macnaheena dhaawac ma jeceshina fiirsatiin oo u jeedin meesha toltolanta wala xataa ay gariiliga ma furan dadka qaar la dhahay dhaawacyo hore wax ay u yeelin oo u jeedin dhaawacayga meesha qodob laga tolay 9 qodob ka tolan gacanteeda way barartaa daway madowaatay gacanteeda kale waa u jeedin gacmahayga inuu jirkayga meel badan oo fiskirna jiro in ay dadka si sheekeeyana marwa ilaa hadda aniga shoogaaba yahay no feeling good ka khayr badan ay rajeynaya isoo duceeya insha Allah taala gabar walbana waxa rajeynaa inay yani is ilaaliso waxyaabo jiro qof baad waxay qor Israel I think dadka shirqool xagoodina ka socota sababtoo ah inay waxa jiro wax fiis lagu raadsayo waxyaabo fiis lagu raadsan waxyaabo like lagu raadsan soo aniga nafteedina halis ay gasho fiis wax lagu raadiyo ma ahan soo dadka beenta dadka u warinayo dadka caanka baro barna ana waa xaasidiin been wax been ma jiraan meeshan sister day beenta ada dhaawac malaha oo social media soo gala social media ani videos kulay marka arka waa ka naxay sida leela dhaqmay mar labaadaba ooyin iyo dhaawac cusub ay igu sii noqotay marka khayr idin rajeynaya bye bye Ilaahay caafiyo idinkan is ilaaliyo intan waa u jeedin inuu jirkayga meel badan